waxaan kaga jirnaa adduunka at least 10 sano la soo dhaafay dalka ugu xun adduunka أنا ما أوران كارو يو وحيد هذا ذلك وجود لكن أنقصه كابنو ذلك وحنا معناه هذا الواحد تهاي ده وحنا نلا أركا ضد إسحاقية يو هكبل عبطه ضدك دولة كجرة هكبل عبطه ضدك شقالها وحنا أوجه جناح استوى في عينه ولي كلتشر كودي كلتشر كي إسلام كواحيان سياسيين مركو حال رباعيني تاس وحكبر تانو نيكا جناعسي أما جناعسدها مركو وقف وحكودر سنة وحكودر سنة قف آمنة هدو قف كاس هل مر خيامنا مقالة مسوق جلاي قف كاس وهي سياسية مرك هل مر لاركو إنه خيامي إن سياسة لقى سعره مرك أروح عن بلان قاضية أما أنا ناس إيدي بتين oo kan amoolaha indhaha kan dhagaha ilmahaas aan dhalan wali iyo kuwa hadda dhibaatoonaya oo qaxaya oo abaaruhu baabi'iyeen iyo qofka roon kulli amaanadaas iyagay ka wada dhaxaysaa inaan u ilaaliyo amaanadaas oo qof dawladda ku jira ama magac leh oo ognahay oo ummadaas shilmay leeyihiin ka qaata waxaan ka ballan qaaday inaysan dhici doonin arinta labaad oo aan pledge-kayga ahayd oo aan balanta ku qaaday oo dadkii ugu taageeran waxa kamid ah cadaalad dalkan wuxuu la burburay oo colaadna haysatay noo haysataa oo qabyaaladda iyo shakiga nagu kala dhex jirana gaarsiiyay waa cadaalad darro weyn wuxuu sheegay aadan barre ducaale wuxuu sheegay golihii wasiirada la magacaabay waa dhab wey qof walba wuxuu rabaa inuu iska dhex arko waxa laga yaabaa qofkaas inuusan aqoon laakiin uu raadinayo qof qabiilkiisa inuu ku dhex jiro waxaan idin sheegayaa anaa ugu horeeyo madaxweyne ah anuu qabiil mali anuu ni Soomaali baan ahay Soomaali baa ay dooratay Soomaalidaan u dhaxeeyaa qof aan soo dhaweysanayo qabiil ku soo dhaweysanayo ma jiri doono qof aan qabiil ku fogeynayo ma jiraayo Prime Minister-ka markii aan magacaabay 3 arrimood iyaan ballan ku galnay midda koowaad waxay ahayd مسخ إنان كفوجانو مدة اللبادنا وحي أهيد إن محنكو راحدا أن وضع شقينه أو خلافات كسكيل على تنسد حادنا وحي أهيد إن دتك يضلك أن أؤدبنه وصد عادة وأدبنه معناه الوحي يسقنا قبل مرة قبلنا كشقين ماي محايا يلي وحن مثلا ومدى الصوماليات أو دن يمثلا وصح قبيل بعد شيئاً عيه لكن واحد كله تلي السجن نوصل قبيل الشيئاً قولها وزير هذا عن مجاعوني أو عن كل جن تاجرين نكرمناه أو سيدي أديشين مركات تاجري سين وان كان بين كجري أو حلبانا ده وعيسينه وحان كعد سنة وزير هذا سوا صح طابك أو حقوق بسنا قبيلة إلهي وانا يجود بندونا وحن جارنا مال أن وجود منه وحزاب أن وجود منه والله وقف ولا الله إكرا تجان أنت أنك جارين وحين كعد سنة يا أنت هاز وزيران والله فريستي وحن أوشيء قبيل من مثلا قبيل قف كير ربع إنه قبيل مثله وإنه نقض كاب قبيل هدي الربع إنه دور دان كم النقضه وحن مثلا وزارة داس وحن مثلا أمة الصوماليات صغير كبير مركا إذنك وحين كعد سنة يا إن حل بانada wacdaan hadii aad iska dhaxweydaan ogaada wasiiradaas idin ma matalaan qabiilkiina ma matalaan markii aan raadinayay Prime Minister-ka yaan dad la hadlaayay kala duwan waxaan ku yiri qofkii hadda igu imaanaya inaan u magacaabo qof qabiilkiisa waxaan ballan idin kaga qaadaya ninkaas aan magacaabi doono inuu waxba idin tari doonin marka waxba hadda hawl loo bigareyn qabiilkiina قف كاسي وحوح ترى دوران الصوماليين وقت هسكالو منا هدو هاي وصلوا نقولنا هوران نيكي وحنا ما ترين محايا لي مبدأ أن كل شقينا بالصومال لماء مركا وزير هذون ونوعاس كل شقين مايان ما نقول دونان حق درنا كما قول دونان قفنا مفوقين دونان وأن قبل كوضع حين مركا وحنا كعد سنة يا إن قفل بقى صوماليا وقرن كرا
maxaa yeelay weli xanuunkii waana hayaa 26 sano oo shakiga ahaa oo kalsooni darrada ahaa oo qofkii meel la geeyaba markiiba uu eriyaayo qofkan ku qabiil ahayn markiiba uu ka soo buuxinayo dadkiisa wallaahi billaahi insan dhicin anaa idiin sheegay hadday dhacdana ninkaas wasiir ummadda Soomaaliyeed u noqon maayo marka qabiilkiis meel ha ka raadsado waxaan ballan qaaday oo kale markii lay doortay inaan shacabka la hadlo caleemisaarkii baan kula hadlay waxaan jeediyey warbixin dheer oo aan taabanayo meelo kala duwan hadday noqoto arrimaha gudaha ee dhaqaalaha hadday noqoto ganacsiga hadday noqoto la dagaalanka argagixisada hadday noqoto arrimaha dibadda oo aan ku sheegay annagu waa ixtiraameynaa dowladaha dariska ah waa ixtiraameynaa caalamka iyaguna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale inayna ixtiraamaan oo na tixgeliyaan oo nala shaqeeyaan speech ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed aan kula hadlayo ahaa waxaan ballan qaaday inaan keeni doono ra'iisul wasaare hufan oo wanaagsan muddo 15 bari dhexdooda ah yaan ku magacaabay meesha dastuurku uu ii siinayay inaan ku magacaabo 30 casho runtii waa markii ugu horeysay intaan ogahay 15 casho gudaheeda lagu magacaabay ra'iisul wasaare isagana waxaan kula dardaarmay inuu 15 casho gudaheeda ku magacaabo golihiisa wasiirada laakiin qabiiladii baa dhibay marka waxay ku qaadatay 21 casho markaas waxa la leeyahay waa daahdeen maxaa yeelay madaxweynuhu wuxuu leeyahay 30 casho inuu ku magacaabo ra'iisul wasaare isagana wuxuu leeyahay 30 casho oo kale inuu ku magacaabo golihiisa wasiirada waa 60 casho waxaan ku magacaabnay 15 casho oo tayda ah iyo 21 casho oo tiisa ah markaas dadku waxay leeyihiin war maxaa qabanaysaan war ma hore u socotaan marka waa dhab weeye waxaan ku jirnaa waqti urgent ah sense of urgency aan ku jirnaa waqti badan baa naga lumay waxaan rabnaa waqtigii lumay inaan dib u soo celino sidaas darteed ilaahay wuxuu nagu guuleeyay inaan dadka aan ku xulanay anigu dad badan oo waxa jiray asxaab aan ahaa oo jeclaa laakiin ballanteeda hore waxay ahayd inaan ka shaqeeyo danta dalka iyo dadka qof kasta oo siyaasi oo yiraahdo warniyo ninkan iga qabana aniga hay fiiriyo hal qof oo saaxiibaan ah meesha kuma jiro marka sidaas runtii waxaa noogu suurtowday inaan magacaawno dad wada hufan oo wada jaamiciyiin ah oo kulli khibrado wada leh ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshooda u fududeeyo waxaa laga rabaa ma aha in la ansixiyo kaliya waxaa la rabaa dadkaas in lala xisaabtamo oo haddii ay shaqayn waayaan mooshin yaan la odhan laakiin maxaan ku yiraahdaa constructive criticism waxa la yiraahdo naloo soo gudboon la yiraahdo wasiirkaas dhalilahaas uu leeyahay waxaan ballan qaadaynaa wasiirkaas hadduu toosi waayo inuusan nala sii shaqayn maxaa yeelay annagu waxaan ku shaqaynaa danaha shacabka Soomaaliyeed iyo danta guud yaan ku shaqaynaa ee qof gaar ah aan danihiisa u fulleena ma jirto walaalayaal ilaahay amarkiis waxaan idin sheegayaa wax yaab leh maalintii aan magacaabnay golaha wasiirada maalintii ku xigtay roob baa bilowday oo weliba gobolada waqooyi ka bilowday maanta iyo shan waxa la sheegay meelo badan oo ka daay marka waxa laga yaabaa golaha wasiiradu inay khayr la yimaadeen idinkana ducada noo badiya in ilaahay uu na qaboojiyo roob badan noo keeno si dhibka ina haysta abaaraha ah uu naga dulqaado iyo colaada weliba waxaan runtii rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Kenya iyo madaxweynahooda iyo shacabkooda sida diiran oo wanaagsan oo runtii aniga iyo wafdigeena noo soo dhaweeyay runtii waxaa meeshaas ka muuqata inay diyaar u yihiin in la furo page cusub oo ku dhisan mutual interest and equal footing macnaheedu waxay tahay dad isxushmeeya runtiina diyaar u ah inay wada shaqeystaan iyagoo danaha dalkooda eegaya maslaxadda dalalkooda eegaya inaan isku soo dhaweyno maslaxadeena oo ay ka mid tahay inaan furno xiriirkii isweydaarsiga dhaqaalaha inaan furno taasi waxay keentay madaxweynihii shalay aniga isaga inaan press conference sameynay uu ballan qaaday in uu furo diyaaradihii isaga gooshayay tooska maxaan ku raahdaa ay ahaan jirtay xamar iyo Nairobi in dib loo soo celiyo
وكحما دتك الوجير وحلاقيها وحوجها economic hardship إنه كله عو لكن رنتي دتك سومالي دوار رفادين محايا لو حين مرين أجنس أجني بمرين يدب بمرين إنه يسوم مران وجير أين مران the same process إن مران مركي يجي مدان نيروبي مركا تاسو وحي فودينيسا إيش صعد كا يجنع سجا لبض دلو أنت أسوي حادر إن أن سوي دار سنو رنتي أقونتا إيو تبردا إيو محاكورة هذا إيو حياة بدنا إن سوي دار سنو سيد الله شيئا حدود كي وافرني ودت كواسو جوشايا جنع سوى لبض نعبو واسير جوش دون دولا هيرادو marka meeshaas runtii waxa ka soo baxay oo aan sii xoojin doonaa insha Allah xiriirka labada wadan oo runtii ku dhisan saan sheegay maslaxadda labada dal oo xushmad leh taasna waxaan aaminsanahay iskama iimaanay waa hawl aad qabateen horay oo aad uga shaqayseen maxaa yeelay afkiisu wuxuu iga sheegay Soomaalida halkan joogta inay yihiin dad fiican oo sharaf badan oo runtii dalkan dhaqaalihiisa kor u qaaday oo dad shaqaysta ah yuu sheegay marka taasi macnaheedu waxay keentay inuu xushmeeyo dalkii aad ka timaadeen waan uga mahad celinayaa majority leaderka aadan ducaale iyo ragiisana aad iyo uga shaqeeyeen runtii hawshaan inay fusho oo hawshaan ma ahayn hawl iska dhacday waxay hawl hore looga shaqeeyay marka waa kaaga mahad celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow dal aan dhaqaale lahayn ma shaqeyn karo anigu waxaan la imaanayaa amaanadii inaan la tartamo dalka ugu hufan oo ugu fiican oo la yiraahdo Denmark yaan rabaa inaan la tartamo markay noqoto hufnaanta meesha aan kaga jirno 176 wax naga hooseeya male marka waxaan isku dayayaa meel kore inaan keenno si aan u keenno hadda waa inaan helno dhaqaale aan maamulno ganacsada waxaan ka codsanayaa marka rugta ganacsiga halka nala jooga iyo ragga naga maqanba inay dawladda taageeraan oo awal haddii shaki ay ka qabeen wixii ay dhiibaan in meel kale la marsiinayay ballan baan kaga qaadayaa dhaqaalahaasi in sidii ay tahay in loo maamulo oo qof shakhsi ah uusan si xun ugu takrifalay laakiin de maxaan nagu xisabtamayaa haddii aan waxba loo dhiiban waxaan ka codsanayaa ganacsatadu inay u hormaraan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay canshuurta bixiyaan dalkan budgetkiisu aadan ducaale ii sheegay wuxuu ii sheegay $100 bilyan oo dollar weey sanadkii bisha dawladooda meesha anagu ay ka tahay inaan sheego ma rabo $300 milyan oo dollar marka waa dhaqaale runtii lagu maamulo hal iskuul soma garan yaan rabnaa waddan inaan ku maamulno macnaheedu ma ah dhaqaalaan inaan hayso dadkii baan bixinayn canshuurtii dadku haddii canshuurta bixiyaan oo dawladooda kalsooni siiyaan oo ay aaminaan waxaan aaminsanahay dhaqaalehen inuu gaari karo 20 bilyan iyo ka badan 20kaas bilyan oo la xalaynin way ka baraka badan tahay 100 bilyan marka saan aaminsanahay marka ganacsatada waxaan ku boorinayaa ilaahay dhaqaalaha idin badiyo waxa haystaan waxa ilaahay kugu daro laakiin in dawladdiina aad maxaan ku raahdaa wixii ay ka mudan tahay oo canshuura aad siisaan waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya marka dalkeenu waa dal kheyraad badan waxaad arkaysaan oo loogu dal wareegayo macna darrima wax badan yaa Soomaaliya yaalla Soomaaliya waa dal qani ah haddee noqoto oil and gas haddee noqoto mining haddee noqoto waa wax dhulka hoostiisa ku jira oo haddii aan caqli la imaanno dawladda dadka Soomaaliya imaanaya oo investment ku sameynayana waa inay helaan dawlad aamina ogaada dawlad tuugaha cid wax ku darsanaysa ma laha waxyaabaha ugu horeeya oo adduunka ku soo jeedaya investment waxa kamid ah dawladdan corrupted miya corruption kan waxa keenaya qof iimaan la oo aan patient lahayn oo aan sugi karin waddanka horta inuu qani noqdo oo raadinaya kat wax la yiraahdo iyo commission fee qofka markuu arka marka la yiraahdo kat keen wuxuu leeyahay meeshan haddaad billion geliso hadhow maxaa lagu weydiin doonaa war waxaan waa tuugay waxba iska gelin meesha
laakiin markuu arko in fakarka uu aaminsan yahay oo dowladihiisa ku shaqeeyaan uu ka dhex arko wuxuu leeyahay dalkani waa dal aad aamini karto systemka hadda aan bilownayna oo dimuqraadiyadda ahna waa haysanaa oo the rule of law ah oo la isdacweysan karo adduunka la isku dacweysan karo marka haddaan la imaano ammaano iyo dimuqraadiyad oo clean ah oo uusan qofna design garaynayn election si ugu soo noqon lahaa midda kale aan sheegay waxay tahay anuma design garaynayn si aan ku soo noqon lahaa maxaa yeelay 4 sano inaan noolaan doono kala ma aqaano waxaan soo ogahay maanta inaan shaqayn karo maanta shaqadan qabto haddii aan ku soo noqon karo waa alxamdulillah haddaan ku soo noqon waayo qof iga fiican la helana waa ka sii fiicanta laakiin qof design garayn kara election ma jiro waxaan ka shaqaynaynaa dowladeen inaan maanta shaqada qabanno noo taala biri ma ah biri waa balaan garaynaynaa waa qorsheynaynaa laakiin shaqada maanta aan qabanaynaa marka shaqadaas waxay noo liid garaynaysaa marka dadku inayna aaminaan caalamkuna ay wax nagu darsadaan saas darteed caalamku markay investment keenayaan muhiimku waxay tahay inay kaa dhexeerkayaan inaad tahay aamin dowlad clean ah oo transparency leh oo accountability-geedu meesha ugu sarreysa u yahay dimuqraadiyad iyo sharcina ku dhisan labadaasna dee waa labadii aan u dhaaranay oo aan dhaarta u marnay oo ay tahay khasab inaan fulino dalkeenu waa qani waxaan idiin sheegayaa in ummad Soomaaliyeed ee gaajo u dhimato ama cunto dibadda looga keeno runtii waa dadnimo xumana haysata waana sharaf xumo iyo magac xumo runtii aan leenahay way Soomaaliya waxay leedahay markaan idiin sheego 8 milyan oo hektar oo aan u baahnayn fertilization best aan u baahnayn wax maxaan ku raahdaa dhulku waa fertile way uma baahna in sun iyo bacrimin uma baahna bacrimin uma baahna marka waxaan ka beernaa oo kaliya wax ka yar 100 hektar 8 milyan diyaar ya noota oo labadooda dhexdooda ah oo diyaar oo hadii mirihii lagu tuuro hore ka soo baxayaan waxaan leenahay bad aad u dheer iyo sidii shalay uu sheegay maxaan ku raahdaa qof baa sheegay madaxweyne ku-xigeenka yaa wuxuu lahaa waa meesha kaliya badda Soomaaliyeed ee malaygu uu doqonimo ku dhinto meel kale adduunka malaygu doqonimo kuma dhinto dadkeenana gaajo u la'aanayaan marka waxaa la rabaa malaygaas intuusan doqonimo u dhiman inaan adduunka u suuq geyno waxaan leenahay xoolo fara badan intaas marka la dhaafo haddaan caqli la imaano dalkeena macdinta ku jirta wax caadi ah maaha meesha strategically adduunkan kaga naalana meel adduunka nala mid ah ma jirto waxaas oo dhan waxay nooga halaabayaan runtii dowladda la rabaa inay tahay dowlad hufan oo wanaagsan oo capacity la timaada iyo shaqo wanaag la timaada oo waxaan cudurkaas uu sheegay aadan ducaale oo qabiilka ah wax jira ma aha ana idin sheegay wax jira ma aha haddaan baadiyo uga soo tagno magaalo nimid waxaan rabaa inaan sidii caalamka iyo adduunyada horumartay ay u nool yihiin inaan u noolaano oo aan ku shaqeyno war yaa noogu wanaagsan yaa wax qaban kara yaa noogu daacadsan yaa ilaahay ka baqaya laakiin haddaan ku qaadano intuu caali cun lahaa intuu caali cun lahaa baaniyaal cun lahaa cali habaysisto intuu baaniyaal cun lahaa cali habaysisto macnaheedu waxay tahay kan kugu doqonsan noole oo wax sii haddii qof doqon ah oo wax matara ah oo tuuga kuma noolayn karo maxaa yeelay isaga tiisi gabayba marka annagu waxaan ka ballan qaadayna hadduu ilaahay yiraahdo inaan sidii aad nagu doorateen 4 sano soo socota inaan waxba iska bedelin insha Allah waana la caayi karaa waa dhab dadku mid ma aha dad aan fiyoobin yaa nagu dhex jira oo qaarkood dowladnimada si kale u fahamsan ama si kale wax u arka annagu ma diidayno criticism waa okay wax dhibaato ah annagu ma aragno weliba waxaan arkaa inay tahay wax lagu saxayo marka og tahay adigu in wax laga sheego waxa leeyahay war waxaas ama wax ka jiraan balbaar dib uma aragno ugu dambeyntii waxaan ka codsanayaa walaalayaalow aan isu gurmano aan iscaawino dadkan baaba'aya Soomaaliyeed oo abaaruhu haligeen oo dhibaateeyeen oo xoolaha ka dhameeyeen waxaan ka codsanaynaa jeebkeen u furno qof walba wuxuu awoodi karo uu ku tabaruco
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.